xalu helista iyo kala badbaadinta dadka walaalaha ee dagaal beeleedyadu ku dhex marayaan deegaano ku yaala galbeedka magaalada Kismaayo wuxuu ahaa halku dhiga kulan ay magaalada Nairobi ku yeesheen odayaal culimo u diin iyo siyaasiyiin ka soo jeeda mid kamid ah beelaha walaalaha ay dirirtu dhex martay nabadoon deer bakaal maxamed cabdi fataax idli ka injineer maxamed salaad cali wiilwaamo oo madasha kulanka kadib la hadlay wariyaasha waxay wax laga xumaaday ku tilmaameen in xilligan dagaal sokeeyo uu ka dhacay Jubbaland waxayna fariin u direen maamulka Jubbaland iyagoona sidoo kale bogaadiyay odayaal iyo waxgarad ku baxay joojinta dhiiga dadka walaalaha ee colaadu ku dhex martay deegaano ku yaala galbeedka magaalada Kismaayo. بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسول الله أجمعين إنا لله وإنا إليه راجعون أنيقو محمد صلاة علي كما قاعدير ويلوامو iyo odayaasha ganacsatada nimanka siyaasiyiinta halka jooga waxaanu cod dheer baaq ugu direynaa dadka walaalaha ah ee islaamka ah ee sheedaanku isu geeyay ee dhiigooda uu qubanayo galbeedka magaalada Kismaayo waxaan ugu baaqaynaa walaalayaal dagaal wiil baa ku dhintay wiil kuma dhashay waxaan idin leenahay baaqa qaata nabadda qaata waxaanu soo dhaweynaynaa dadka waxgaradka ah culimada siyaasiyiinta dhalinyarada hooyooyinka dadka Soomaaliyeed walaalaha ay saakay dadka u kala dabqaaday nabadda doonayagana waan u duceynayna waan u hambalyeynayna waana ka xunnahay waana ka tiiraanyeysanahay waxa ka dhacaya gobolka oo ahaa gobolkii ugu darnaa Soomaaliya dhibaatada ugu weyn ee ka dhacday in maanta mar labaad dhibaato beeleedyo dad si gaar ah intay uga faa'iideystaan dib lagu soo celiyo gobolka waxaanu ka digaynaa dadka reer miyiga masaakiinta ah inaan dhiigooda mansab lagu doonin inta dhimata Allah u naxariisto inta dhaawac Allah u boogdayo islaamka gobolka Jubbada Hoose jooga gaar ahaan magaalada Kismaayo iyo ummadda Soomaaliyeed waxaa leenahay war dadka walaalaha ah colaadooda si loo damin lahaa laga qayb qaato dawladda federaalka ee Jamhuuriyadda Federaalka Soomaaliya madaxweyne Maxamed Cabdullaahi Farmaajo ra'iisul wasaare Xasan Cali Khayre waxaanu ka codsanaynaa ummadda wixii dhaawacantay ee dib ku gaaray ee Jamhuuriyadda caasimadda Jamhuuriyadda soo gaaray doorka ay ku leedahay inay ka qaadato dadka caafimaadkooda si loo daaweyn lahaa dhibta jirtana sidii ay wada xaajood ama mataqaana waan uga galleeyeen dawladdeeda waxaan jecelnahay inay ka qaadato doorka ay leedahay waxaan ku soo gaabinayaa war walaalayaalow islaam baa tihiin joojiya dhiiga ilaahay ka cabsado ilaahay u noqdo kuwa dadkaas dhibtooda ama siyaasi ha ahaado ama ciidan ha ahaado ama wasiir ha ahaado ku doonaya mansabna war ilaahay uga baqa dadka masaakiinta dad xoololay ah ma aha dad magaalo degan war dhibta ha laga daayo ceeb wixii ahay dhacday waxay ahayd waa tii shalay loo qaadi waayay dhaawacii cidii samaysana iyada iskale mas'uuliyadeeda dhaawac la qaadi waayay inkastoo maanta aan maqlayay waxa u kacay culimada iyo dadka islaamka iyo dadka meesha joogay dhaawac waa la qaaday Kismaayo waxa la geeyay magaalada caasimadda dalka Soomaaliya Muqdisho mar labaad iyo mar saddexaad waxaan codsanayaa baaqaygu uu yahay nabad walaalayaal nabadda qaata oo ilaahay uga baqa dhiiga aldaadinaysaan intaasaan ku soo gabagabaynayaa ilaahay subxaanahu wa ta'ala ayadkiisa quraanka wuxuu yiri alladina idha asaabatum musiibatun qaaluu inna lillahi wa inna ilayhi raaji'uun kullu nafsin dha'iqatul maut naf kasta oo la arka geeri way dhimanaysaa marka waxaan halkaan tacsiid tiiraanyada iyo baaq nabadeed oo isla socdaan ugu direynaa dadka ehelka oo walaalaha ah ku dagaalamaya magaalada Kismaayo gaar ahaan galbeedka magaalada tacsiidaas kadib baaq nabadeed dhibaatada aad iyo aad soo noqnoqotay dhowr sanadood hadda 2018kii hadda way soo laabatay mar labaad dhibaato badan halka ka dhacday inta kadib waxaan halka dhaliil ugu soo jeedinaynaa annagoo ah odayaal dhaqameedkii beesha Coormala waxaan halkan dhaliil ugu soo jeedinaynaa maamulkii halka ka talinayay inuu la saftay beelbeelaha kamid ee dadka dhibaatada ay gaadhay oo ay ku gaartay magaalada baadiyaheeda oo reemiga ahaa dhaawacyadoodii in maxaan ku yiraahdaa loo diiday magaalada in la soo geliyo
kuwii baadiyaha ku dhaawacmay second kuwii magaalada gudaheeda ku jiray oo maalmood ka hor dhaawacooda magaalada la keenay dadkii soo qaadiyay oo soo caawiyay islaamnimo iyo tolnimo iyo ehelnimo u caawiyay ayagoo dhaawacii soo wada oo soo galbinaya magaalada gudaheeda ayagoo soo gelinahay ayagayna la xirxiray dhaawacyadiina qol gooni ee lagu xareeyay waan wax ka baxsan islaamnimada iyo soomaalinimada weeyaan waxa marka dhaliilkaas aan soo jeedinaynaa inuu hormuud u yahay maamulka magaalada ka taliyo qaar kamid ah inay la safteen oo dhaawacyadoodii ay soo qaadeen meedadkoodiina ay soo qaadeen oo xawaaleen dhaawacyadoodiina isbitaalla private oo lacag ee wali ay geeyeen taa ayada ee dhaliil waxaan ugu jeedinaynaa maamulka hadaanu nahay beesha Coormala jaaliyada Kenya ka tirsan annahay sida daraadeed Soomaali weyn iyo Muslim intiisa dhamaan iyo dawladda federaalka waxaan ugu baaqaynaa in waxa ayaga waxay kaga aadan ay wax kaga qabtaan fikirkooda wanaagsan oo saliimka dadka aqliga u saaxiibka ah aqoonta u saaxiibka ah waxaan u sheegaynaa anagu ma nihin cawasho kama nihin oo hanalaga celiyo dhibaatadaas aan haystay hanala soo gargaara dhihimayno laakiin waxaan indhaha caalamka iyo dawladda Soomaaliyeed iyo ummadda deegaanka aan marqaati inay ka naqato aan doonaynaa dhibaatada halka ka taagan oo maamulka horseed uu yahay in dadna dhaawiciisa banaanka lagu reebo dadka qaarna dhaawacooda xamar ilaa maxaan ku yiraahdaa Kismaayo ilaa Kenya la soo gaarsiyo annagana kaanagii lagu reebo magaalada baadiyaheeda nama qabato hadaanu nahay jaaliyada Kenya ka tirsan beesha Coormala nama qabato sida daraadeed waxaan u sheegaynaa mar labaad aan baaqiga ku celinaya beeshan waxaan leeyahay ha qaadato nabadda ummadda Soomaaliyeed ay qaadatay ay u soo garatay ha qaadata baaqa asaga laakiin waxaan leeyahay oon kula dardaarmaya inaysan duulaan ay ku qaadan reer Soomaaliyeed oo meel degan duulaan aysan ku qaadin cidii soo duushino difaac inay ka gasho diinta islaamka farayso sida hadda wararka aan ku haynin inay hal maalin ay duulin mar walba lagu soo duulay guul darana laga kulmay waa ummadda Soomaaliyeed oo ka hareeraysan oo jiiraanka hataa way ogtahay sida daraadeed marka waxaan mar walba ku guwaabinayaa inay nabadda qaataan culimo diinka ummadda Soomaaliyeed garaadiinta iyo maxaan ku raasul salaadiinta oo maanta nabadda ku baaqeen way mahadsan yihiin boqolkiiba boqol sida darteed mar labaad iyo mar saddexaad waxaan leenahay inay nabadda qaataan halkaas ayaan hadalkaygu ku soo kooyaa bismillaahir rahmaanir rahiim anigoo ay odagay Coormala li yiraahda Wasdeer oo Bakaal Maxamed waxaan halkan ka salaamaa ummadda Soomaaliyeed تعسية سلام كذب إنا لله وإنا إليه راجعون جيرد هلكا كدعدي وحق والبكت مادي ومدى الصوماليات آدي آدبان وحنحنهي انتي دمتي إلهي هاون حريستو انتي داوع قارين إلهي سبحانه وتعالى الله أبوضي انت كذب وحواي باق عن درايا باق دير بان درايا oon maqalsinayaa ummadda Soomaaliyeed oon gaarsiinayaa maamulka Jubbaland oo halka mas'uuliyadii ay saaran tahay dawladda federaalka Soomaaliya oo madaxweyne u yahay Farmaajo oo ra'iisul wasaare u yahay Khayro dhibaatada halka ka jirto oo ummadda Soomaaliyeed haysato oo soo naqatay oo waqti badan dhacday waa ina dhibtay aad bay noo dhibtay waa dhamaawaysay waa aran dhibaato oo deegaanka lagu hayo soo naqatay maamulka halka joogan waxba uu ka qabo way hadda kaliya ma aha arintaas muddo hadda 2 sano wax bay socotaa meel fogna kama socoto meesha uu dheer oo arintaas ay ka socoto Kismaayo 60 kilomitir u jirta maamulku waa jooga wuxuu joogaa Berool uu joogaa meel ka fog ma aha aad baan u xunnahay inay laba beelood oo Soomaaliyeed oo walaal maamul iidos jooga la xalli way arintooda wax laga qabo waaya dhibaatada intaas ay gaarto wax ka hadla hatay jirin uu joogo madaxweynaha ilaa hadda hatta tacsiyan ka maqlan aad baan u xunnahay waayo dhibka haduu dhaca oo boolay qafka u dhihin oo mas'uulna meesha uu ka yahay oo ka hadlan farba u laaban ma fileenin waxa meesha ka dhacay aad baan u fileenin maamulkaas dadkii dhisay baan nahay dadkii keenay baan nahay dadkii ku martigili wax kala markii hatta hoolaha ay cariiri galeen
caano iyo hilib oo Jubbaland soo dhis oo waqti ergadii ku hay caano iyo hilib oo halka ku bixi Jubbaland laf dhabarkeeda waay maanta waxaan na qabatay oonan istaahilin oo markaati leh dadkii soo dhaawacmay oo la soo qaaday oo dad u gurmadeen in laga celiyo eelaboorka iridis oo dadka qaar dhibaatada uu imaatay u dhinteen oo saacada meesha lagu haystay oo dadka soo qaaday la xirxiray oo ilaa hadda ay xiriin waxna qabto ma aha mana yeeli doono xisaabtanaana ka dambeeyo marna ma ogolaa doono hadaan nahay beesha Coormal waxna qabtana ma aha eelaboorkaas oo hadda dadka laga celinayo markii la asaasay oo meeshaas la baneynay amarna la weydiisay geela meesha deganay waxa la yiri geela dhinaca nooga rara halkaas bal eelaboor baa laga dhigaa dawladda Soomaaliya naga cusubtay ninka laga cusubay waa jooga wiilkiisa jooga maanta inay dhacda anagoo halka Jubbaland ku soo dhaweeyni oo wixii keenay aheeni oo halkaan intaan ka kaxayn halka geeyni dhaawacayna in eelaboorka laga celiyo wallahi baan ku dhaartay hadii mas'uuliyadaas iide oo meesha ka dhacday aan emergency laga bixinin oo arrinta iide aan dib intii loo baahan cidi ka dambaysta laamba sharciyaan laga qaadan waxa way jawaabteeda maamulka meesha xukuumay oo Axmed Maxamed Islaamkiye yaa bixinaya wixii ka imaada mas'uuliyadaas Axmed isaga dush saarna waana qanaan ragga meesha ka celiyo dhaawaca dhibaatada keenay oo shudadaas keenay lagama hadlan waxaan intaas ku dareynaa Soomaalida ummadda Soomaaliyeed oo ummadda Nabi Maxamed waxa daaqda nabad wiil baa ku dhasho colna wiil baa ku dhinto walaalayaal waxa meeshan oo nii dhaxeeyo oo dhibaato oo meesha jirto ma jirto gacan kala meeshan ku jirto dhibaatada ka shaqeyn hayso war gacanta iska fiiriyo war dad walaalo oo deegaan baatiin ilaa 500 qarnaad soo wada deganadaan waligi isma gaaran dadka meelaha degaaya oo meelaha tuulaa la degay iyo matoora la suri iyo waxyaalo noocaas arinta way ka weynta war waxaad yeelaysaan markaan adinka aad isku dhacdaan oo isku baaba'daan dhulka yaa xukumay dhulka yaa joog dhulka dadkii lahay waa adinka waxaan leenahay nabadan ku baaqayna dadka Soomaaliyeed oo reer Jubbaland oo nabadda u duuban oo saaka u baxay oo ilaa hadda nabadda u heegin waa u mahad celinayna waana salaameena garabkiina Allah galan leen waxa kale halka mar labaad baaq uu diraya labada beelood oo meesha ku dagaalamayso war Ilaahay ka baqo hal naf ee ninkii gooye ummadda Nabi Maxamed oo dhan idood laayay lamid tahay war waxaad yeelaysaan meeshaas dil dabayo ka dhicin war meeshaas dagaal dabayo ka dhicin war meeshaas dabaday ka dhicin waxaan leenahay cid walba oo arintaas ka dambayso xisaabtana jiro waa la xisaabtama doona waxay halkan ka socdaan dhibaatada socoto waan baari doona baaritaan baan ku durna cid Allah cid aan ku soo helnana insha Allah bi idin Ilaahay kariim sharciga la marnaa haduu Ilaahay yiraahdo insha Allah bi idin Ilaahay kariim markala waxaan leeyahay baaq dheer baan diraya baaqa aan diraa waxay tahay beelaha Soomaaliyeed oo deegaankaas degan oo dhulku degan waad aragtaan wax meesha ka socdo baaqa labaad oo diraa wuxuu yahay dawladda Soomaaliyeed dadkaas soo dhaawacmay oo toos loo soo qaadan oo hore aan gurmad loogu fidan oo degdeg loo soo qaadan oo maanta magaalada la gaarsii waxaan codsanaynaa madaxweynaha ra'iisul wasaaraha xildhibaanaha sharafta leh wasiiraha dhammaan dadkaas in loo gurmado wax laga qabto dadkaas dhibaatadooda aad bay u badan tahay dadkaas inay meel walba oo wax loogu qaban karo loo diro waxna laga qabto la sii wana tago eena la fiiriyo waxa socdana kor iyo hoos loo fiiriyo wassalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu cabdiweli xuseen tawakal telefishinka universal magaalada Nairobi